السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام الدماء ولا الله ملك استجوبتان أي هوب دمانتين على دنتين عارف ما تقبتان محيسنتين ملك استحلي كست يساعد كستيدين تا الله سبحانه وتعالى يدوم كل حفتي سودو هذا وينجيز كسرنا قلنا إياه ندر فيديو وأنا نادية مع عارف ما تقبتان من محيسنتين إلهي محايدي كريتشانية ملك استجوبتان إنه الله يدين حفتي إن شاء الله بإذن الله كريم ولا الله قدر لك قصو بيرو ويلكم كسودو هذا ما يدين كتش عليها ولا الله يجي هرو ويلكم باك دمانتين سودو هذا جزاك الله خير إن شاء الله بإذن الله كريم فضلا ولا الله يقالي وحن ديك عسنية إن في فيديو قليك تسار وتوب مدي يوتيوب كا إذا كان بلاش بيديته أنا كان ديركلمون أي نقطة عاد أيان أمهات سنتين دمانتين جزاك الله خير معايشة دي عاد أي وقال قروري بريحان مال ويكستو عن تكو أديك ويجرو قالستين وحكست الشيء سيدا لو قادو وسي قال قرب عاني هي أشلا $4 كوجن ويقدم $10 بتجزا ويقدر حسيها $7 بتجزا قطرة دي راشين كي everything واي سو أديك أنا dressing كسلر كلو قطرة $10 يوحكو أوجا $9 أو حد من بونقطة وحكست إنه ساو قادنا ويقال قرودي أنا جي مريكان كشوفنا وأرجنا قربيه أدون كمال ودن كاني مال كستم معيشة ويقال قرودي لعقتي لقول شقيني لما كردين لعقتي dadka loo diray lama kordhin dadkii struggle bay dadkii ku jiraan waa cuntadii aynu u baahneen oo si qaali garoodo sidee la yeelaya marka I feel bad aad ayaan uga xumahay walaalahayga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay aad ugu dhib badan tahay oo aan awoodin ama ay struggle ku jirto marka maciishadii markay qaali garoodo maxaynu sameeynaa anigu bisha tan aynu ku dhamaatay hadda bishii 8aada budgetkaygu waxaan ka kormaray $75 oo aan ku soo adeegtay intii budgetkaygu waxaan ka kormaray $75 because waa u baahanahay grocery waa u baahanahay meeshii vegetable markaan tagay aan qaadan jiray wixii aan gadi jiray waliba sidaas ay tahay bishan 8aad hilib ari ma soo gadeen waxaan soo gadanay steak fish chicken waxa cunayna laakiin hilib ari xoogaa yar baan u maleynay laba maalmood aan kariyo hal maalin kariyo ayaa talaagada igu jirtay hilib ari oo dhan ma soo gadeen haddana saas ay tahay 75 ayaan ka kormarnay taasina waxay alaabadii oo qaali garowday qutradii oo qaal garowda fruitkii oo qaal garoway marka sidaas oo kale markay dhacdo maxaynu sameeynaa sababtoo qofka budgetkiisu markay areeri tahay qof oo lacagtiina ay grocery aad ugu tala gashay ay ka yaraato ama aad struggle ku jirtid maxaynu sameeynaa marka taas waa wax inaga dhan in wada saameynaysa meel kasta oo adduunka joogno ama Afrika joog ama qurbo joog meel kasta because maciishadii way qaal garowda waxaynu ku kala duwanahay meelaha aynu joogno iyo income-kayna soo la yiraahdaa oo aynu u baahanahay nolosheena waxa kale oo dhan waynu ka maarmi karnaa laakiin afartaa shay kama maarmi karno waa nolosheena baa ku xun waa guriga aynu deganahay ama kira bixi ama mortgage bixi guri aad degantahay inaad meel aad degatid heshid waa number 1 waa meel aynu u baahanahay waa hoy talabaad oo ah guriga korontadiisi gaaskii biyihii ilan biyaynu xubnaynu u baahanahay nal baynu u baahanahay qabowga inaga celiyaynu u baahanahay kulka inaga celiyaynu u baahanahay korontadii biyihii gaas wax intaasina waa muhiim wayadana waa laga maarmaan ta saddexaad waa cuntadii waxaynu u baahanahay cunto aynu cuno sidee baynu ku noolaanayna haddaynaan cunto helayn marka cuntadii oo kale negotiation meelaynu ka samayn karnaa laakiin waxyaabo badan kama bedeli karno waxna waynu ka bedeli karnaa marka sidan oo kale iyo sidoo kale transportationka dharka aynu xidhan dharka waa muhiim ah oo waxa laga yaabaa wixii hore inaad isku xeleeshatid laba funaanad haddaad isku xeleeshatid laakiin waxyaabaha inaan aad ka uga maarmayn waa guriga korontada gaaska cuntada aynu cunno iyo transportationka gaari hadaynu raacno shaqada u raacno hadaynu caruurta iskuulka geeyno hadaynu bas raacno wixii aynu ku raaci lahayn marka waxa kale haynoo dambeeyaanbe labada mas'alo oo inoogu daran waa guriga iyo cuntada guriga kiradiisa inteena badan choice ma lihin ama waynu leenahay hadaynu guri qaali deganahay waynu ka guuri karnaa oo wada oran kartaa gurigan aad u qaali oo choice waad leedahay waad ka guuri kartaa oo guri xaafadii ka jaban oo area shi ku yaala ayaa degi kartaa oo taas waynu samayn karnaa guriga oo kale choice waynu leenahay inaynu area-da ka guurno inaynu meel kastaba haynu noqoto u guurno cuntada sidoo kale choice aynu leenahay waxa weeye cunto waynu u baahanahay aynu cunno oo cuntadii kama maarmayno marka laakiin maxaynu cuntadii hadii sidayda oo kale hadda bishan kharashkayga batay ama kharashkaagii batay xagee wax ka goyn kartaa ila wada waqti cunto caruurtiba cunto u baahan adigiiba cunto u baahan odagiiba cunto u baahan family-giiba cunto u baahan adigii ma noolaan karno biyaynu u baahanay waxaynu u baahan maxaynu sameeynaa marka hadda anigu bisha tan oo kale soo bishii 8aad budgetkaygu muu karin bisha 9aad waxaan fiirinayaa bal budgetkaygu markaan adeeg tago
wixii wiigi ugu horeeyay shalay waan soo adeegay weli ma ogi waxay noqon doonto bisha dambe waxaan fiirinayaa intii aan soo gadan jiray wixii la mid ah waxyaabaha caadiga marka soo gato kharashkii ma igu filan yahay mise bishii dhaweed baan aad u adeegtay haddaan arko price-kii inuu iskeenayo oo lacagtii aan ugu talagalay budgetka igu yar tahay waxaan go'aan ku gaarayaa inaan budgetkii badiyo oo aan meel kale wax ka soo gooyo ama sidoo kale hadaa tahay dad hilib badan cuno oo kale hilibku meelaha ugu qaalisa weeyaan hilibku si qaali garoobay marka adiga maxaa ku muhiim waa marka mar walba idin leeyahay hilib hadaa jecesho kale ma yareyn kartaa hilibkii chicken ku bedeli kartaa fiishka laftigiisu ma yara qaali weeye fiishkii ma isku bedeli kartaa hilibkii halka hal weegi shan casho ka cuni jirtay maalin ma ka cuni kartaa laba casho ma ka cuni kartaa qudrada ma badin kartaa maxaa ku muhiim mise waxaad rabtaa inaad budgetkaaga intaada uu ku hada ama si kordhisid hadaa rabtid inaad si kordhisid oo budgetkaaga ama lacagta ku soo gasho ay xiriirta lagu soo kordhin ama aan shaqadii la inoo kordhin lacagtii xagee wax ka goyn kartaa marka waxaad wax ka goyn kartaa meelihii shopping iyo kale yaa u baahan maalmo baynu shopping samaysto waa run dad badan baa u baahan laakiin shoppingka alaab aad caruurtaada u gadaysid iyo cuntaad caruurta u gadid keeba dooranaysa dhar aad adigu xidhatid iyo alaab aad guriga u gatid iyo cunto keeba dooranaysa muhiimadu marka cuntadii ayaa inoo muhiima marka cuntadii waxaynu ka goyn karnaa meeshii cuntada aynu meelihii kale adeegii shoppinadii cuntadii aynu banaanka cuni jirnay bil walba waxaynu budget gareynaa inteena badan special anigoo kale cunto banaanka lagu cuno haddii aan joojiyo taas adeegaygan ku dari karaya marka teeba muhiima ma in gurigii iyo reerkii cunto la helo baa ku muhiima mise inaad banaanka cunto ka cuntid in day lagugu yeesho iyo inaan day lagugu yeelan marka budgetkeeni waa inaynu isu baalansi gareynaa haddii grocerygeenu aynu aragno inuu yar yahay xagee wax ka goyn kartaa meel kale wax ma ka soo qaadan kartaa okay guriga ma ka guuri karnaa oo choice ma leenahay inaan guri ka gurno guri kale u jaban u guurno soo lacagta guriga aynu gelino lacag aad diri jirtay ma yareyn kartaa sidee wax ku goyn kartaa gaaskii faraha badanaad gaariga ku halkan jirtay ma yareyn kartaa guriga korontada maalin walba daarani lacag badan bay keentaa waynu ognahay inteena badan dad baa jira aan korontadu lacag badan anigoo kale ma dadka nalka isticmaalo ma jeclisa lightka oo kale hal light kaliya ama laba light baan daara igama aha xataa dhaqaale waxaanay dadka mugdiga jecel soo guriga daaqadaha maalintii noo furan hadaa la joogo guriga habeenkii xataa leedka guriga ma badna fadhiga hadaa TV daawanayna halka dhan hal mid oo yirisa daaran aniga sidaydaan aan u jeclaano mugdigaasi baan jeclaana TV-ga ku daawado marka nalku moor uu daaran yahay moolka koronto badan lagu keeno weeyaan air conditionka qabowga iyo heatka kama maarmi karno iyaga marka xageebaad wax ka goyn kartaa xagee ayaad isu balance tirin kartaa marka muhiimadu waxa weeyaan guryaha aynu deganahay dadkeena inteena badan kharashka inoogu badan aynu bixino adduunweynaha meel walba waa number 1 waa guriga ta ku xigta waa grocery waa cuntada banaanka waa cuntada raashinka iyo cuntada aynu soo gadano jira dad $1 soo gado 500 guri ku degan taas ma ku noolaan kartay 500 guriga lacagta ku soo gasha $1 haduu ku soo galo gurigaagu 250 inuu ka bato maaha haduu ugu bato korontada gaaska wax walba marka la isku daro 300 inuu ka bato maaha waa 30% korontada gaaska everything marka la isku daro 30% inuu gurigaagu noqdo weeye $1 baa ku soo galay gurigaagu 300 haduu ka badan yahay hatta hadaad indhaha isku qabatid 350 ka badan yahay guriga aad degantahay adoo $1 qaata 650 ma adeegad ku soo adeegan macruufta xusin ma sadaqad ka bixin ma dharbaad ugu gadin ma saving bad ka sameyn ma ku hagaag karo marka mar walba isku day guriga aad degantahay kharashkiisa in uu yaraado special kirada haday noqoto mortgage ka haday noqoto guri gabar kale deganto qaaliya iyo xaafad qaaliya adiga dan kuuma jirto maxaad awoodaa soo guriga hadii aynu yareeno kharashkiisa shalabaad oo inoo soo hadhaysa waa grocery xageebaynu marka wax ka yareyn karnaa waxaynu wax ka yareyn karnaa macmacaan soo gadataa maxaad soo gadataa hadii uu budgetkaagu xudeed yahay maxaad soo gadataa ice cream badan ma soo gadataa caruurta weekii hal maalin bad banaanka geyn kartaa ama ice cream soo gadi kartaa oo siin kartaa maxaad soo gadataa how many cereal baa soo gadaa caruurta cunaan hadii kharashkaagu yar yahay ka fikir ilmaheena waynu ognahay adeega markaynu aadno 10 cereal bay qaataan kanaan raba ama boorash waxaynu doonayno ugu yeerno dukaamada markaynu tagno weydii hal ama laba juice karo soo jeceshay ka intuu ka dhamaanay hooy mid kale kuma gadayo cun laakiin hadaad 5 iyo 6 soo gadid maalin walba oo aanay cunayn waxay noqonaysaa qasaare inay noqoto inuu qubno qashin baynu geenaynaa ilaa cidino cunmaysa adigiina lacag baad maalin walba soo spend gareynaysaa aadan awoodin soo waa inaynu fiirino waxyaabaha inoo muhiimka maxaa inoo muhiim ma qudrad ma hilib ma raashin maxaynu isku dari karnaa maxay ahayd teeda kale waan baydin ka yaabanahay kiishka bariiska oo waxaan arkay gabdho Kenya joogo igula kiishka bariiska bilooma yaalo walaalayaalow anu barigan Afrika joogo jir kiishka bariiska wax weeyay buu ahaa miya la yareeyay
مكيشكي بريسكا ها ميو يرادي أنا كيشكي يجا بريسكا ومرايكا ويريدي هن مواوينا هذا نساسي دور بلود ويكوهين كريان qofkii xataa maalmo bareys cuno labado bilood saddex bilood oo kuhayni laakiin Nairobi dadkii joogay raashinka bil walba wana soo adeegana baa la leeyahay dadku ma bareys basta waxaan hayn macunaan miya marka aynu isfiirino xagee ka yareyn karaa xagee wax ka bedeli karaa maxaa ay nutrition grocery-geenu waa wax aynu u baahana oo aynaan ka maarmin laakiin cuntada aynu banaanka ka soo cuno waynu ka maarnaa koofiga aynu banaanka ka soo gadano waynu ka maarmayna caruurta dharkeenu u gadno faraha badan waynu ka maarmi karnaa wax ku filan baynu u gadi karnaa inta ay budgetkeenu isu keen qabanayo soo muhiimadu waxa weeye inaynu ogaano meesha ugu badan aynu kharashka ka bixinayno wixii aadan awoodin inaynu samayno maaha marka waan dareemayaa aniga anaa idin la mida raashinkii wax kasta wuu qaali garoobay waxaadna mar walba samaysaa at least $20 $30 Allah ka dhigay haday bishii ku soo hadho meel iska dhig hadii just in case kale ama cuntada ka go'do waliba cuntooyinka waaweyn oo kale waaba u qaadan karna badan bariis cad xataa oo kar kartaa aad wadankii joogtid oo ka yaraade laakiin haddaad caano u baahatid haddaad biyo u baahatid so always lacag yar oo extra meel dhigo marka budget maxay idin la tahay groceries meel walba joogtaan sida ma tahay anigu runtii waa yaabanay week walba waa anu Mareykan joogo waa caynka marka wallahi qalbigu wuxuu iga xanuuna dadkii wadankii jooga Afrika jooga oo aan dhaqaale badan soo gal even Mareykan dad naga degan ayaa Mareykan meelaha ugu faqriga badan adduunka kamid ah wana lacagta badan dad badan oo gaajeysan oo dhibaataysan oo lacag qaadan baa jirta ama kharashku serumkayga wajiga markaan soo gadanayay bishii 7 ba waxa la soo siiyay sample cream sample oo tusaalaha la soo siiyay teer gareeyo creamkii aad baan uga helay ma sha Allah marka waxaan fiirinayay reviewga dadku ay ka bixiyaan waxaan akhristay dad badan oo uu fiicay aadaan u jecladay intaas waxaan arkay islaam weeyela oo cadaana oo waliba picture-keed meesha uu ku jiro aad weyn waxay tir creamka dhowr iyo 10 sanadood ayaan isticmaalayay laakiin waxay tir hadda faraanka qadan ma isticmaali karo sababtoo lacagtii aan ku gadanayay creamka lacagta cuntada foodka ku gatay in noqoto waa islaan hadaan haday ugu yarato 70 dhowr bajita waxa laga yaabaa islaantaas ilaa maalintii gabadha dhalinyaro ahayd ilaa Mareykan waa khasab inaad shaqeyso inay shaqeynayso maanta creamka intaas oo awood weyd because grocery-ga ugu muhiimsan wallahi waan qeyrooday maamada waayeelka intaas oo dhan shaqeynaysay grocery-geedii ka fikiraysa marka even anagoo xaqalkan joogno dad badan oo homeless jira dad badan aan waxba haysan baa jira ha moodina inaan anagoo qurbo joogno wax la iska wada haysto dadka caydha qaata mahana anagu waxaan soo shaqeysanaa cunna maalin hada shaqada ka tagtid aday ka go'an tahay marka maamadaas fiiri creamkii ay jeclay waxay faraha uga qaadiyado rabta because grocery-geedii ayaa qaali ku noqday oo ay u baahan tahay grocery-ga oo muhiimsan soo inaga tay inoo muhiimsan serumka maanta wajiga marsanayo ma muhiim ma aha hadii aan cunto aan cuno waayo haddaad cunto aan caruurtaada siisid weydid looshi la marsad masalid fasilin ismar haddaad doontid marka waxaan ka wadaa aynu eegno wixii muhiim inoo ah meel aynu joognaba dal iyo dibad meel aynu joognaba maciishadu waa qaali garada ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan inooga rajeynayaa ummadeena iyo dadkeena iyo meel aynu joogno ilaahay irsaaqad waasacay noogsi ilaahay intii dhibaataysan inuu dhibka ka kor qaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala irsaaqad xalaala oo aynu ku dheerabno inuu ilaahayna siiyo dhibaatada tan iyo waxaan socdaan ilaahay naga joojiyo marka walaalayaal aynu fiirino meesha inoo muhiim ah iyo waxaynu ka maar kale wuxuu cuno iyo wuxuu haysto iyo raashinka uu qaato waxba kaama gal adiga gurigaaga maalin digar cuntaya maalin fish cuntaya maalin salad cuntaya maalin adigu asloona nutrition cunaysid wixii ku muhiima wixii ku muhiima cuntadaadu waa muhiim waa wixii aad caruurtaada ku korinayso waxaad naftaada ku korinayso waxaad reerkaaga ku waxaad odayga ku quudinayso waxaad ugu naftaada ku quudinayso si aad u shaqaysataan aad reerka u korisid marka waa inaynu eegno wixii inoo bidmilaahi karin wax kasta way qaali garoobeen aynu fiirino wixii muhiim inoo ah oo aynaan ka maarmayn inta xaaladu isbedelayso dad badan oo dhibaataysan ayaa inagu jira ilaahay dhibka naga saaro waxaad fikrad ka qabtid iyo bal waxa grocery-ga cuntadii foodku ma idinku qaali garoobeen sidee xaaladu weeyaan insha Allah as always commentiga igu reeba waa mahadsantiin dhammaantiin jazaakallah intaynu video kala kulmayno khayr ayaa idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu